27 bishii Juun ee sanadkii 1974 diyaarad rakaab ah oo ka soo duushay magaalada Tel Aviv ee caasimadda maamulka Yuhuudda ee Israa'iil kuna wajahneyd Paris caasimadda Faransiiska ayay afduubteen 4 nin waxayna u kaxaysteen dalka Uganda ee bariga Afrika. 250 ruux ayaa la socday diyaaradda oo ay lahayd shirkadda Air France, duulimaadkeeduna uu ahaa lambarkiisu 139. 100 qof oo ka mid ahaa rakaabka ayaa ahaa Yuhuud, waxayna diyaaraddu kusii hakanaysay magaalada Athens ee wadanka Greega. Markii ay ka caga dhigatay Athens, rakaabka dheeraad ah ayaa ka sii raacay kuwaasi oo gaarayay 58 qof oo ay ku jireen 4 afduubayaal ah. wax yar kadib markii ay hawada gashay, afduubayaashii waxay diyaaradda u weeciyeen dhinaca magaalada Benghazi ee dalka Liibiya. dhowr saacadood oo ay shidaal qaateen kadibna waxa ay ka tageen halkaasi, waxa ayna ka dejiyeen garoon ku yaala magaalada Entebbe ee wadanka Uganda. 28 bishii Juun ayay diyaaraddu gaartay Uganda oo xilligaasi uu madaxweyne ka ahaa Idi Amin, madaxweynihii muslimka ahaa. amarka diyaaraddan lagu afduubtay waxaa lahaa Wadi Hadaad oo ka tirsanaa kooxda la magac baxday xoreynta Falastiiniyiinta ee magacooda loo soo gaabiyo PFLP-EO. howlgalkan afduubka ahaa waxaa sidoo kale ku lug lahaa 2 xubnood oo ka tirsanaa kooxda fallaagada garabka bidix ee Jarmalka. kooxda afduubka samaysay waxa ay dalbadeen in loo sii daayo 40 mintidiin ah oo ay gacanta ku haysay Israa'iil oo ahaa Falastiiniyiin dalkooda difaacanaya iyo 13 kale oo ku xirnaa 4 wadan oo kale. 53 xubnood oo ay rabeen in loo sii daayo waxa ay ku kala xirnaayeen maamulka Yuhuudda ee Israa'iil, Faransiiska, Jarmalka, Switzerland iyo dalka Kenya. madaxweynihii xilligaasi ee Uganda Idi Amin ayaa sidoo kale la saftay kooxdan, isagoo caawiyay hub iyo ciidan militari ah ayuuna ku caawiyay sida la sheegay. kadib markii dhammaan dadkii rakaabka ah ee la afduubtay loo gudbiyay dhismihii hore ee garoonka Entebbe, afduubayaashu waxa ay kala saareen rakaabka iyagoo gooni u baxsaday dadkii u dhashay maamulka Yuhuudda ahaa. dalalka kale ee ka soo jeeday xitaa dadkii Yuhuudda ahaa ee dalal kale ka soo jeeday oo aan ahayn maamulka Israa'iil waa ay la baxeen. isla markii ay dowladda maamulka Israa'iil maqashay afduubka, waxay bilowday qorshayaal militari oo ku aadan sidii laga yeeli lahaa arrintan. afduubayaashu waxa ay sheegeen in haddii dadkooda loo fasaxi waayo ay rakaabka wada dili doonaan marka la gaaro 1 bisha Juulaay abaare 8 duhurnimo. ra-iisul wasaarihii hore ee maamulka Israa'iil Ehud Barak ayaa markaasi ahaa korneylka hogaaminaya howlgallada ciidamada difaaca. waaxdiisa ayaa lagu amray inay diyaariso qorshe ee badbaadinta dadkaasi lagu soo badbaadinayo. waxa uu warbaahinta u sheegay in durbadiiba ay xiisad hareysay hoggaanka siyaasadda ee Israa'iil, kuwaasi oo ka fiirsanayay go'aanada la qaadan karo ee suuragalka ah. 30 bishii Juun ayay soo iftiintay rajo kadib markii kooxdan hubeysan ay sii daayeen 47 qof oo Israa'iiliyiin ah, kuwaasi oo loo qaaday magaalada Paris. isla markiiba xubno ka tirsan sirdoonka Israa'iil ee Mossad ayaa loo diray Paris si ay xogo uga soo helaan dadkii la sii daayay. ra-iisul wasaare Barak ayaa sheegay in 2 arrimood oo muhiim ah ay ka caawiyeen qorsheynta howlgalka badbaadinta. mid waxa uu ahaa inaan ka war helnay in militariga Uganda ay si buuxda ula safnaayeen kooxda afduubka geysatay. midda kalena waxay ahayd inaan xog badan aan ka haynay dhismihii hore ee garoonka si aan tallaabo u qaado, ayuu yidhi. iyadoo aan la gaarin go'aan kama dambeys ah oo ku saabsan howlgalka gurmadka ah, markii uu soo dhawaaday waqtigii ay qabsadeen kooxda rakaabka afduubatay oo ahaa 1 bishii Juulaay, ayay mas'uuliyiinta Israa'iil ku dhawaaqeen inay ogol yihiin wadaxaajood. taasi waxa ay keentay in afduubayaasha ay kordhiyaan waqtiga oo ay ka dhigeen ilaa 4 Juulaay. waxay sidoo kale sii daayeen 101 qof oo kale. 3 bishii Juulaay, golaha wasiirada ee maamulka Yuhuudda ee Israa'iil ayaa waxay ansixiyeen in howlgal la fuliyo. saacado yar kadibna ciidanka howlgalka loo xilsaaray ayaa baxay. cidna waxba kama ogeyn in 200 oo askarta commandosta oo wata 4 diyaaradood ay uga soo baxeen Israa'iil maamulka Yuhuudda, iyagoo soo safray 2500 oo meel ilaa ay ka gaareen garoonka Entebbe. diyaaradahan waxay u duuleen dhowr jiho oo kala duwan si aan looga shakin, waxayna ku duulayeen joog hoose oo gaaraya ilaa 100 feet marka ay ku dulmarayeen badda cas si ay uga dhuntaan raadarada Masar iyo Sacuudiga. qorshaha waxa uu ahaa in kooxda gurmadka ee maamulka Yuhuudda ee Israa'iil ay dhismaha garoonka ay dadka lagu hayay ay ku tagaan gawaari. commandosta maamulka Yuhuudda ee Israa'iil waxay markii hore la dagaalameen 2 askari oo ka tirsan ciidanka Uganda, kuwaas oo ay dileen iyagoo isku dayaya inay ka hortagaan ciidanka maamulka Yuhuudda.
si lama filaan ah ayay lug ugu galeen dhismihii ay joogeen kooxdii afduubayaasha ah. Israa'iil waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay daqiiqado gudahood ku dileen 7 afduube iyo 20 askari oo ka tirsanaa militariga Uganda, dadkoodiina ay badbaadiyeen. Dhinaca Israa'iil waxaa halkaasi uga dhintay oo keliya Korneyl Jonathan Netanyahu oo ahaa taliyihii kooxda gurmadka ahaana ninka soo qorsheeyay howlgalka. Jonathan waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil walaalkiis Benjamin Netanyahu. Si loo sharfo shaqadii uu sameeyay Benjamin Netanyahu walaalkiis, waxaa howlgalka loo bixiyay Operation of Jonathan ama howlgalkii Jonathan. Mas'uuliyiinta Israa'iil waxa ay sheegeen inay badbaadiyeen in ka badan 100 qof iyagoo wax shuruud ahna aan u fulin kooxdii afduubka ahayd. 40 sano kadib, sanadii 2016, Benjamin Netanyahu oo markaasi ahaa ra'iisul wasaarihii Israa'iil ayaa booqday goobtii laga fuliyay howlgalka oo ku dhintay walaalkiis, waxauna dhigay ubax isagoo sheegay in halkaasi ay ka muuqato geesinimada dadka Yuhuudda ah, waa sida uu sheegay. Hase ahaatee, howlgalkan sida uu u dhacay markii la eego, waxaa muuqatay in dalal badan oo muslimiin ah iyo sidoo kale hogaamiyayaal badan oo muslim ah ay kalsooni daradooda ay sababtay in dadkani naftood horeyaasha ah ee ku jihaadayay cadowga Yuhuudda in la xallin waaye ama ugu yaraan loo fulin waaye dhan la talin qorshayaal ah iyo sidoo kale in la magan geliyo. Haddii tusaale dalka Liibiya ay ku kalsoonaan lahaayeen oo gudihiisa ay ku sugnaan lahaayeen, waxa ay ka cabsadeen in Muammar al-Qadaafi uu u gacan geliyo dalka Yuhuudda inkastoo xiriir uusan lahayn. Sidoo kale haddii ay ogolaan lahaayeen in la keeno Sacuudiga ama dalal kale oo muslim ah, kuma aysan kalsoonaanin. Kalsooni darrada muslimka dhexdiisa ahna waxay sababtay inay soo aadaan dalka Uganda oo markaasi uu ka talinayay Idi Amin oo ahaa nin adag. Inkastoo uu ahaa nin adag oo diintiisa muslimka ahna ku adag, hase ahaatee waxaa muuqatay in dhabarjebin Yuhuuddu ay sameeyeen. Sidoo kale kooxda weerarka ama afduubka fulisay waxa ay ahaayeen koox aan in badan haynin xogo badan, maadaama ay ku qaldanaayeen inay sii daayaan dadkan faraha badan. Iyagu waxay u arkayeen sii deynta dadkani inay culayska ka tiro badnaanta ah ay ka qaadi doonto. Hase ahaatee, waxa ay u keentay dhibaato ah in la ogaado xogahooda, tiradooda, halkay ku kala sugan yihiin, hubka isticmaalayaan iyo sidoo kale dhismayaasha ay adeegsanayaan iyo zaadka iyo cuntada ay haystaan. Taasi waxay keentay in khaladkii ay galeen lagu ciqaabo. Khaladka kale ee isna weynaa oo ay galeen waxay ahayd in muddada ay kordhiyaan. Israa'iil muddo kordhinta iyo ogolaanshiyaha wadaxaajoodka waxa ay ka lahayd qorshe ah in kolka loo kordhiyo waqtiga, waa sida uu korneylku sheegay, ay fuliyaan ama ay dejiyaan qorshaha oo muddadaasi ay ku diyaar garoobaan. Isku soo wada duub, arrinkani waxa uu noqday mid taariikhda galay, waxaana uu ku diiwaan gashan yahay bogagga madow ee maamulka Yuhuudda dhibaatada uu ku hayo dadka Falastiin iyo hardanka iyo loolonka dadkaasi ay ugu jiraan inay ka xaroobaan dulmiga 70 sano gundaha u dhigtay.